قشين غدا انتاد جرتين انتاد غلط قشين غدا انتاد جرتين قرح يدا دكتين قبل يدا غدين بي كو قصاصيا كو قصاصيا كو قصاصيا كو قصاصيا انتاد غلط قشين غدا انتاد جرتين انتاد غلط قشين غدا انتاد جرتين قرح يدا دكتين قبل يدا غدين بي كو قصاصيا كو قصاصيا كو قصاصيا كو قصاصيا وصوغ دمي قيقود كهري كان دعي غرير عيدا كوغ غبو عيدا كوغ غبو عين الوطن عيدا كوغ غبو عيدا كوغ غبو وصوغ دمي قيقود كهري كان دعي غرير عيدا كوغ غبو عيدا كوغ غبو عين الوطن عيدا كوغ غبو عيدا كوغ غبو جعلو كيلا سوق الدو قصرا جعلو عداد وقيشة يوق الماي سيدة عداد وقيشة يوق الماي سيدة كيلا سوق الدو قصرا جعلو كيلا سوق الدو قصرا جعلو كابينات قولتا قدكو سرني قول استدلنو ودينارا قول استدلنو ودينارا ومسارهاقي ودينارا كابينات قولتا قدكو سرني ودينارا قول استدرنو ودينارا وقصراقي ودينارا أميا لقريبا تركو مقلوب قراب تدين وودنا غدا عيدا فوق قبو قارك يمي قراب دين عيدا فوق in muxuu dagaalku muxuu hawada iyo muxuu dhulkaba uu si fiican uga socday duqeyntaasi way jirtaa runtii waxa weeyaan muxuu nimankana si wada jira in muxuu la isaga qabto waajib weeyaan marka dagaalkaas iyo duqeyntaasi waxa weeyaan khasaaro badan buu geystay xagga duqeynta hataan soo laabto waxa way duqeyn xoogan baa dhacday waxay ka dhacday laba meelood meesha la yiraahdo Bambila oo ay ku leeyihiin muxuu talis weyn oo saldhig baa halka ku yaalo cadawgu leeyahay gantaal way baa ku dhacay khasaaraha muxuu halka ka dhacayna aad buu u ballaaran yahay gaadiid inuu gubtay baanu ka warhaynaa niman fara badan oo talis meesha ku lahaana muxuu way baabeen gabi ahaan waxa kale oo duqeyntu ay ka dhacday meesha la yiraahdo muxuu Bangeeni qaybta muxuu wabiga gediska ka halkaana gantaal way baa ku dhacay asagana muxuu khasaaro weyn buu geystay waayahay meesha lagu dagaalamayo dad shacab baa joogay khasaaraha shacabka soo gaaray balka war runtii waxa weeyaan ciidamada Soomaaliya guud ahaan waxay muxuu aad uga taxadarayaan ummadda Soomaaliyeed ee shacabka meelaha aanu muxuu duqeynayno waa meelo xog rasmi laga hayo waa meelo muxuu ummadda Soomaaliyeed aad iyo aad loogu ilaalinayo in muxuu khasaaro uu soo gaaro waxaan isleenahay meeshaasi meel gebi ahaanba cadawga baa ku sugnaa laakiin wax shacab oo joogay ma jirin waayahay inta badan jamaama waa la weeraraa haddana ciidamadu waxa la arkaa iyagoo dib u soo laabanaya marka tani maxay kaga duwan tahay howlgalladii hore waxaan isleenahay madaxda dalka waxa weeyaan awaamiirta iyo waajibaadka ay bixinayaan ciidamadu gudanayaan
waxay kaga duwan tahay muxuu ahay dagaalada qorshaysan ee muxuu ahay ummadda Soomaaliyeed guud ahaan isu diyaarinaysay kaga duwan tahay waa hawlgal waajibaadkiisa nala siiyay haddaanu saraakiisha ciidamada Soomaaliya nahay marka way ka duwanaanaysaa wixii hore ee dhacayay hadda wixii laga bilaabana muxuu ahay hawshu sida ay muxuu ahay si ma garanaysaa ka sii xoog badan baa loola dagaalami doonaa nimanka cadawga taliya wajahooda ka muuqatay maxay inoogu sheegi kartaa runtii waa su'aal muhiim ah aadan su'aashaasi waxaa iiga muuqday runtii magaalada Bangeeni Beleduraxma iyo Koban waxaa iiga muuqatay runtii diif aan aad iyo aad ula jiridhacooday aad iyo aad muxuu ahay nafsadayda iyo qalbigayga wax uga bedeshay maxaa yeelay waxa weeyaan dadkaasi ma haystaan wax caafimaad oo ay haystaan ma jiro wax waxbarasho ay haystaan ma jiro wax ma garanaysaa haddii ila yiraahdo nolosha aas-aasiga ku saabsan oo ay haystaan ma jiro waa dad waxa weeyaan any time ay birtu saaran tahay waa dad waxa weeyaan ku seexda habeenkii goorma lagu qalayaa waa dad waxa weey ku soo toosaya maanta maxaa lagu weydiinayaa oo muxuu ahay laga dhacayaa waa dad muxuu ahay mar walba u taagan muxuu ahay cadow aan u naxaynin inay muxuu ahay kor taagnaadaan waayahay dagaal baa dhacay al-shabaab dabcan iyo ciidamada xoogga dalka gacmaha isula tageen maxaa soo qabateen maxaabiista runtii maxaabiista aanu keennay waxa weeye ilaa 5 bay gaarayaan maxaabiistaas waxa weeyaan dadkii ku shaqada lahaa waxa weeye dambi baarista lahaa nooc dooniba waxa weeye ha ahaadeen bay ilaa hadda gacanta ugu jiraan dadkaasi waxa weeye dad anugu aan xaqiiqdooda ogahay inay shabaab yihiin baa kamida waxaanu soo bandhigi doonaa markii waajibaadka muxuu ahaa baaritaanka laga gutaano soo bandhigi doonaa inta badan marka wadooyinkaas al-shabaab laga saarayo dadka shacabka waxay ku dhibaateeyaan miinooyin iyo waxyaabaha qarxa say uga hortagteen waxyaabahaas runtii waxa weeyaan miinadaasi ciidanka gaarka ee danab qaybta 43aad waa si muxuu ahaay khibrad ay ku jirto muxuu miinooyinka u saaray ciidankaasi wuxuu ku guuleystay ciidanka danab ee sida gaarka u taabaran in uu muxuu miinooyinka gebi ahaanba uu soo wada saaro markii laga reebo 3 miino oo waxa weeyaan muxuu cadawga ay qarxiyeen ciidamadu intayna soo gaadhin waxa weeyaan wax allaale wixii kale ee halka yaalay 9 miino oo waxa weey ummadda Soomaaliyeed la rabay in lagu dhibaateeyo ciidanka gaarkii uu soo bixiyay 3 miinana muxuu ahay intayna ciidamadu soo gaadhin bay qarxiyeen 13 miino buu ku guuleystay ciidanka danab in uu muxuu ahay fashiliyo waxna uu soo saaro waxaan isleenahay ciidanka danab runtii waxa weeyaan waxbarashadii muddada 4 sano ee la siinayay waxa weeyaan khibradda ahaa way ku guuleysteen ummadda Soomaaliyeedna way ugu shaqaynayaan wayna ugu shaqayn doonaan insha Allah tacaala meel kasta oo nimankaasi ay joogaanna waxaan u diyaarsanahay hadday miina dhigaan inaan soo saarno hadday muxuu ahay dagaal isku soo dayaanna inaanu ka hortagno meelaha ay joogaanna inaan ugu tagnaan u diyaarsanahay ugu dambeyntii maxaa baaqa oo aad u jeedin lahayd dadka Soomaaliyeed ee tuulooyinka la xoreeyay ee gasha waxaan isleenahay horta marka ugu horeysa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed si wada jir ah in la isaga qabto nimanka waa baaq aan dirayno weeyaan midda labaad waxa weeyaan meelahan muxuu al-shabaabka laga xoreeyay ee hadda xorta ah sida muxuu Bangeeni Koban waxa weey Araare Muuse Xaaji muxuu ahay in dadka horta muxuu ahay ay dawladdu waxa la wixii lagu caawin karo lagu caawiyo waan muxuu ahay iyadana soo jeedinaynaa tan kale waxaan leenahay nimanka muxuu cadawga ee muddada fara badan ummadda Soomaaliyeed dhibaateynaya inaad la dagaalantaan oo gacmihiina ula tagtaan oo dhammaan qof kasta waa inuu muxuu ahay qofka cadawga al-shabaabka inuu dilo muxuu ahay taasna waan ugu baaqaynaa ummadda Soomaaliyeed waxaan idinka mahad celinayaa sida hufnaanta leh ee firfircoonida aad ugu shaqaynaysaan ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan ummadda reer Jubbaland inta kadib shirkayga jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay ciidamada dawlad goboleedka Jubbaland iyo ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada sida gaarka u tababaran ee danab ayaa waxay howlgallo labadii maanta ilaa ay shalay ay ka wadeen deegaanada hoos yimaada degmada Jamaame alxamdulillah howlgalka oo sidii looga talagalay u dhacay dhammaan looga guuleystay kooxihii sharwadayaasha ahaa ee shacabka Soomaaliyeed dhibaateyntiisa iyo dhiigdaadintiisa mar walba ku howlanaa dagaalada si toos waxay ugu dhaceen Badar Jadiid meesha la yiraahdo Bangeeni Koban Beleduraxma 4 goobood dagaalada ay ka dhaceen ba waxa alxamdulillah ciidamada ay ka soo gaareen guul waxayna halka ayda ugu dhimatay kooxihii khawaarijta ahaa 27 rag ah waxa sidoo kale dhaawac culus ka soo gaaray koox badan oo kamid ah kooxihii sharwadayaasha ahaa
firxadkoodina waxaa ilaa saacadan lagu sheegaya ilaa jamam ilaa jilib ilaa halka inay u farxadeen ciidamadana waxay howlgalkii ay ugu talagaleen burburinta goobihii cadowga uu shacabka Soomaaliyeed mar walba dhibaatada ugu soo maleegay ay ku fuliyeen burburin ama ay ka fuliyeen burburin aad iyo aad weyn heerkadan uu sareeyo waxaan rajaynayaa insha Allah bidina karim inay ku dhiiran doonaan damba in shacabka Soomaaliyeed ay reer Jubbaland nabadda jecel inaysan mar damba amnigooda ama wax dhagar ku ah aysan ku soo dhiiran doonaan ayaan rajaynayaa maadaama ay la kulmeen wiilal u tababaran ka hortagooda iyo sidii loo burburiyana aad ugu takhasusay waxaan u mahadcelinayaa marka ciidamada iyaga waxaan leeyahay waad mahadsantiin howlgalka iyo guusha aad u keenteen guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Jubbaland abaal ayaa idinku hayaa insha Allah bidina karim waxaan rajaynayaa inaad gurgaartaan saas oo kale ciidamada waxay soo saareen 9 miino waxayna qarxiyeen 3 kamid ah miinooyinkana way qarxiyeen waa 12 ay saa ku noqonayaan cid wax ku noqotayna ma jirto miinooyinka oo kooxaha ay geliyeen laamiga dheer isku xira Muqdisho iyo Kismaayo ayagoo ugu dan lahaa shacabka Soomaaliyeed ee wadada isticmaalaya in ay ku dhibaateeyaan dhagarna ay ugu maleegaan dhiigoodana ay ku daadiyaan waxa saas oo kale ayadana howlgalka si fudud miinooyinka ku soo saaray ciidamada iyaga alxamdulillah howlgalkana wuxuu noqday howlgal najaxay waxaan u rajaynayaa insha Allah bidina karim howlgalada way sii socon doonaan deegaano badan ay dadka ku dhibaateynayaan ayaan insha Allah laga saari doonaa hadduu Ilaahay idmo